بسم الله. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد waxaa la soo gaaray bishii Shacbaan baanu gudaha kaga jiraa maraan fogeyna insha Allah subhanahu wa ta'ala waxaanu ku soo food leenahay ama nagu soo food leh bishii Ramadaan oo ah bishii barakaysnayd tajamucan oo sidan oo kala ahna runtii waa munaasab in aan cala aqal waxaana la gudboon oo shariicadu naga rabto inaan marka isku baraarujinno saad ogtihiin waa nicmo ilaahay ina siiyey intii koronaha lagu jiray masaajidu siday ahaayeen ramadaanku siduu ahaa iyo dhibtay naga haysatay marka sanadka kan insha allahu wuxuu kusoo beegmaya xilli masaajidu ay noo furan yihiin innagoo dhan aan diyaar nahay biidnillahi subxaana wa tacaala waxaan isleeyahay waxaa la wixii cibaada ah ee naga tegey oo aanay suurtagal noo noqonin sanadkii lasoo dhaafay iyo kii ka horreeyeyba in sanadkan sida ay tahan u gudan doono nicmada cibaadada iyo duurul cibaada in la isugu yimaado nicmada xajmiga ay leedahay runtii waxayna dareensiiyey koronahayna dareensiiyey bishan soo socota biidnillahi subxaana wa tacaala waxay noqon doontaa bil ka duwan tii hore maxaa yeele ma ogid in xitaa aanu sii joogi doonno adduunka waa kan dagaalla iska noqday in la sii qixi doono xaaladda ilaahay subxaana wa tacaala og marka sidii aanu ugaga fara qabsan lahayn sahay iyo zaadna uga qaadan lahayn baan u baxaynaa biidnillahi subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahay aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquuna ayaaman macduudaat maalmo fara ku tirisaa lagu sheegay 29 iyo 30 intuba ay noqon karto maalmaha maxaa inala gudboon nabiga sala allahu calayhi wasalam marka bisha ay soo socoto himamta saxaabadu kicin jiray uu gubaabin jiray uu ku baraarujin jiray sala allahu calayhi wasalam faqrada koowaad oo ah bir ramadaan baa nagu soo socota fadliga ay leedahay iyada sheekh mustafa uu daalanaya hadda mid kale uu ka baxay laakiin waxaan leenahay uu sii fududaynayna waxaan rabnaa fadaa'il shahr ramadaan inuu wax naga yiraahdo biidnillahi subxaana wa tacaala 3 faqray noqon doontaa qaybta dambe axkaamta iyo mubtilaat as-sawm iyana waxaa iska leh دكتور يوسف بإذن الله سبحانه وتعالى تفضل. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء هذي شفتوا واحد هيدين يقول المامان على كل إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحنا قلت الماما يا يدا شيخ آخرين يا ربي ولي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحال يدنكو واجب يا ليصون سيدي دتك يدنكو الرئيب اللو واجب يا لي لعلكم تتقون أي كي تتقوا سا إلهي سبحانه وتعالى وعبستنا مع عبسد الربي أو قادا رمضان فضايشيدو إن بدن با مقشمان رجينيا وانا بالكوة مسفات روحية وبالوقفك مسلم كي أصحي حدين دنبغا اسكميلو وحين أقول بدن دوني دينغا هستوى ذنوبتين آخرية دون بنا وحلين وابا المرينيا انت بدن وذنوبتين وحيا ربنا قد عفا موياني هدينو هيريدا اسكر رغنو وحالي دالي دي سماردو شاكي سيكن نقطي ذنوبتا ووحا وينا للوغو دوادو هذا العلماء وحالوت لويدي تصبيح ده هي استغفارك كيبا نو الرئيسين نبيدا اما كيبا فضل بدن ورقاسا وحولي ضدك ذنوبتو كو بدن تحينا استغفارك والروم بيولي ذاتك الذنوب تكون يرتحينا تصبيحاتك والروم وهي وحي كما أديكو أسكا قلدي الله اسمع عطرية بوتلمامية
inaad ismaydho oo marka hore uskaga iska rogtaabaa roon nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ramadaan in ilaahay ku dhaafo ramadaan ilaa ramadaan wixii u dhexeeyay in ramadaanta lagu dhaafo waxaa kaloo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaan soo galayso in dadka badh laga xoreeyo naarta oo ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda dhaafo waxaa kaloo nabigu uu tilmaamay qofka sooma in ilaahay dembigiisa dhaafayo waxaa kaloo nabigu tilmaamay qofka iimaanan waxtisaaban tukada habeenadaasi in dembigiisa la dhaafayo waxaa kaloo lasoo tilmaamay qofka habeenka laylatulqadriga si gaar ah iimaanan waxtisaaban u kaca in dembigiisa la dhaafayo idan ramadaan oo dhammi ama soonkeeda ha noqoto ama qiyaamuleelkeeda ha noqdo iyo salaadaha habeenkii la tukanayo ama habeenka laylatulqadriga ku jira ha noqdo dhammaanteed inay tahay wax qofka muslimka ilaahay subxaana wa tacaala dembiga uu kaga dhaafo dunuubtaynu galla waa tiro badantahay cibaadaadkaynu la nimaadnaana kuma wada filla oo nabigu wuxuu tilmaamayaa salaad ilaa salaad baa dembiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay jimce ilaa jimce baa dembiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay bil ilaa bil baa dembiga lagu dhaafaa waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad haddii dembiga la dhaafay jimcuhu muxuu maydhayaa ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatay ama jimco walba haddii dembiga la dhaafayo muxuu maydhayaa ramadaanta marka la gaadho cibaadaadku aynu samaynaa ma aha sidii la rabay nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid baa salaad tukada oo salaadiisa aanan helaynin ilaa cushuruha ama thumunuha ama tusucuha iyo wax la mid ah idan waxoogaaga jajabka marka la isugu kaa biiriyo kolba inbaa lagaa dhaafayaa hadday wada dhaafi kari weydo ta kale jajabkeeda lagugu sii daraya in kalaa lagaa dhaafi hadday ilaa jimcaha gaadhi weydo waa la isugu kaa biirin idan waxaynu samaynoo dhammi perfect ma wadaha halkii qimada ma gaadhsiisna laakiin waa waxyaabo qofka muslimka hadduu ku dadaalo dhammaantood ilaahay dembigooda ku dhaafayo dee maantana waaba ogtihiinoo qoladan caafimaadka ka warrantay iyo waxa kane dee asawm ilmutaqatic sooma maqashaan in badan intermittent fastingka sheegaan soonta googo-an iyo caafimaadka si wax uga taro bale ilaa xad bay hadda tilmaamayaan waxaan filayaa nobel pricekii 2016kii la qaatay oshua odaygii jabaniiska ahaa wuxuu ku qaatay soon bay ahayd oo ahaa qofka bini aadamka iyo difaaciisa say u soo noolaysa iyo jidhkiisa say u cusboonaysiisa iyo wax badan idan waxaan leenahay adduun iyo aakhiraba waad ka faa'iidaysaa adduunna caafimaad baad ka helaysaa inta ugu badan lesaa la tilmaamayo aakhirana dembigaa lagu dhaafaa waana kaa nabigu ku tilmaamayo xadiisulqudsi inuu ilaahay leeyahay acmaasha kaloo dhan bini aadamka iskale soonka mooyaane soonka si anaa le baa ilaahay yidhi waana ajzaa bihi maxaa loo yidhi bay culammadu yidhahaan soonka ilaahay baa leh kuwa kaleba ilaahay baa leh salaadaba ilaahay dartii waxay yidhahdaan waxay ka baxsantahay qaacidadii ahaa alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 nusuustu sheegtay ayay iyadu ka baxsantay bay yidhaahdaan oo haddii waxyaabaha kale 10 laab lagugu abaalmarinayay ilaa 700 jeer la gaadhayo iyadu waxay yidhahdaan qaacidada way ka baxsantay ajarkeeda ilaahay unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala idan waxaynu leenahay waa waqti aynu u baahanay inaynu u diyaargarowno ninka taajirka ahi wuxuu u diyaargaroobaa mawsamka wax la gato soxaka maaha ninka taajirka ahi dee waqtiyada uu is leeyahay wax badan baa lagaa gadanayaa buu alaab badan soo jamalaystaa oo ku talagalaa qofka muslimka ahi waqtiyada dembiga xoogga loo dhaafo inuu u diyaargaroobaaba ku habboon acmaasha kaloo dhan uu iska fudaydiyo si uu camalkaasi u dhammaystiran karo marka bisha ramadaan inaynu ku talagalno oo intaanay soo gelin inaynu u diyaargarowno u diyaargarowgeennuna inaanu noqon hurdo badan iyo fasax badan ee inuu noqdo juhdi badan iyo camal badan oo diineed inaynu la nimaadno dadka badh baa ramadaanta waxay ugu diyaargaroobaan bariiskii reerku cuni jiray bariiska tiro badan hilibkii la cuni jiray hilibka tiro badan kaamaaha diyaargarowga ka warramaya ramadaan ba waxaa loo soomayayba in la gaajooda in cunada lasii badsada looma xoolo guranaynin waxaan rabnaa inaynu u diyaargarowno cibaado badan inaad samayso
bishaa inaad cibaadaysato oo isku dayda inaad ka bixi karto bishaa iyadoo ilaahay dembigaaga dhaafay. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزا الله خير فضيلة الشيخ مصطفى. runtii waa baraarujin meesheeda leh in loo tabaabashaysto bisha ramadaan niyada lagu gelin inay noqoto niyad runtii aad iyo aad u diyaarsan oo ma ogid inuu soo laaban doono fadligaa weyn oo lagu sheegay. faqrada labaad waxaa iska leh macaali sheekh doctor yuusuf oo ah waxaad noo faahfaahaysaa in yar oo la xiriira mubtilaat asawm ama mufsidaat asawm, maxaa fasahaadiye soonka, maxaa buriya. أحكامته waxay noo raacaysaa فضيلة الشيخ أسئلة لا حريرتا فيما يتعلق بالصوم وضد فرق بدن القضاء اللي بقول لي هي سنوات كلها صار ضعفي أما هالنقدين دمر إيجو عذري وكجتجي أما با أمول معركتين إذا الشيء أم الشيء أما الماء إنه جينا يسيء لها المال سفر أحكام ترى بالراعي إليه سبحانه وتعالى كم بركاته. فليتفضل فضيلة المشكورة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. إلهي سبحانه وتعالى توفيق الله نوافجيه جل وعلا. saad ogtihiin soomku waa cibaado ilaahay jideeyey subxaana wa tacaala, rasuulkanagana calayhi salaatu wasalaam ou sharaxay oo caddeeyey maaragtay asaga laftigiisu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. markaan ka hadlayno shayga cibaadada la yidhaahdaahi ma ahan dhaqan, ma ahan wax la iska soo gaaray, ma ahan qofku soo doonayo waxa uu sameeyo, ma aha. waa shay sharci ah ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala. marka wuxuu leeyahay qaacidooyin asal ah ayuu leeyahay. waxyaalaha qaarkood haddii qofka uusan la imaan ama shuruuddiisii iyo arkaantiisii iyo aasaaskiisa uusan la imaan, soomkaasi la odhan maayo waa soom sharci ah, qofku waa soomay la odhan maayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi raafic ibnu khallaad la yidhaha baa u soo galay masaajidka, waasaad ogtihiin masjidkaas oo ku jira. saxaabigaas waa dukaday, waana rukuucay, waa sujuuday. laakiin marka rukuucdii sujuudii uu dhammaystay buu nabiga u yimid oo salaamay. nabigu wuxuu ku yidhi salli fa innaka lam tusalli, warniyaho maadan dukana duka buu nabigu ku yidhi. dee ninkii waa rukuucay soo ma, waana sujuuday, waxna waa akhriyey, waxna waa shubay, waa dadaalay. nabigana wuxuu ku yidhi warniyaho maadan dukan buu yidhi. marka maxaan odhanaynaa sum fa innaka lam tasum. nafsu lqaacida, qofkii aan sharciga sidii loogu talagalay u soominin, isagana maxaa lagu odhanayaa sum fa innaka lam tasum, warniyahow soon maadan soomini. marka cibaadadu waxay leeyihiin maaragtay shuruud iyo arkaan bay leeyihiin iyo waddo loo qaado. qofkii ay cibaado fardu cayn ku noqoto sida salaadoo kale ama soonka oo kale, ama qofkii xoolo helo xajinaya iyo qofkii xoolale hoose kee bixinaya, fardu cayn qofkay ku noqoto qasab cibaadadas inuu qabto ay ku noqoto, waxaa waajib ku ah inuu axkaamteedana barto. sax maaha? macnaheedu ma aha cibaado ilaahay waxaan caabudayaa cibaado saan doonaya anugu, ama ilaahay looma caabudo jahli laguma caabudo. hadday cibaadadu fardu cayn noqoto, qasab kugu noqoto, axkaamteeduna waa fardu cayn iyo xukunkeeda maarta. waa markuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim. fariido waajib bay ku tahay cilmiga dalbitaanka laga doonayo. cilmi tawxiid iyo caqiidadu qof kastaba waa laga doonaya, waa waajib inuu qofku barto. salaadoo kale mukallaf qofka ah waajib bay ku tahay inuu barto axkaamteeda. masaa'il ka qarsoomi kartaa waa jirtaa, laakiin masaa'isha caamka ah waa inaad baratid weeyaan, aasaaska ah. sidaa darteeda soonka markaan soomayno yaanan maaragtay aabbahay baa saa u soomi jiray iyo ayaydii baa u soomi jiray iyo saasaan ka soo gaaray isan naga noqonin. waa inay noqotaa cibaadadii ma tahay midii saxda ahayd.
nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma u soomay ma tahay shuruudeeda ma leedahay arkaanteeda ma leedahay adduunyada shuruud baa jirta haddaad qof shirkad la heshiiso haddaad forshigni kaasa xoolo u doonato haddaad maartay meel kale shuruud baa jirta shuruuddaasi haddaad ka soo baxdo dee waa shayga waa leedahay soo ma laakiin shuruudda haddaad soo buuxin weydo adduunyada lagu siin maayo aakhira maxaad malanaysaa shuruudda haddaad soo buuxin waxa weeyaan noqon mayso cibaado noqon mayso aan soo koobo erayada kooban aan ku soo koobo inta caadiga waxaa loo qaybiyaa soonku iyo cibaadooyinka dhammaantood iyo axkaamta diinta markaan qaybinayno laba qaybood baan u qaybinaa ayaa loo qaybinayaa qaybi waxaa la leeyahay qofkaani cibaadadiisii waa ansaxday laakiin habkii fiicnayn ma ah waxaan leenahay waajibkii waa ka dhacay laakiin macnaheedu ma aha waajibku qofku ka dhaco inuu si fiican maaragtay oo maaragtay cibaadadiisa u wanaagsantahay ma aha haddaynu niraahno waajibkii waa kaa dhacay macnaheedu ma ahan ajir baad ka hesho haddaynu niraahno waajibkii waa kaa dhacay macnaheedu ma aha yani waxa waa laga aqbalay dadka qaar baa isku qaldaan qof kastoo waajibku ka dhacay macnihiisu ma ahan in laga aqbalay aqbalitaanku waa masale gaar ah oo ilaahay ciduu doono ka aqbalaa inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin laakiin waxaan ka hadlaynaa qofkan cibaadadaani ma lagu leeyaho soo qallay baan oranaynaa mase waxaynu oranaynaa cibaadadaani waajibkii waa qabatay waa qabatay waajibkii laakiin waxaa dhici karta waajibka inaadan si fiican u qabanin ogow markaan ka hadlaynaa iminka waxaan ka hadlayaa waa wixii cibaadadaani waajibkii qofkan waa ka dhacay markaanu leenahay weeyaan ilaan waxaan ka hadlaya mubdilaadka wixii asaasa buriya ka hadli maayo mukammilaadka waxaa dhici kara nin inuu soomo maanta dadka uu xamanayo magaran dadka uu caynayo oo sidii la sheegayay social mediaha maartay wax kasta ku qorayo waxa dhici karaysa inuu munkaraad kale dhexda uga jiro laakiin markaanu eegno shuruudii ansixitaanka laga helay oo cibaadadaas waajibkii waa tuura baan leenahay laakiin macnaheedu maahan ajir buu ka helay oran mayno sax ma waajibka ajir buu ka helay oran mayno marka waa masalada labadaas qaybood waa inaan u qaybinaa waa inay ogaatiin marka markay fuqaadu ka hadlayaan waxay ka hadlayaan shaygii oo qofkii waajibkan uu ka dhacayo ay ka hadlayaan وإلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكبيانتا حانتا أفحمدا عدنا اسكدنا فنين مركو سومية هاي إلهي الدن كمالها إنه كتقوا عندي عبتان يعني شيء حارانا هاي أيو سمينية شيء أصلكو رمضان كما يوقتيك الحلال هنا واسكدنا في عبتان كعنتان كاها حنتو حرام بيهد ولقيت مالين مالما كميدا حنتو ما بنا صح معها افلقاددو مالين مالما كميدا ما بنانان لكن راشنك عبيتانك يعنتانك وبنايهين الى انت يرتاه ساعداس كوان او لغو امتحامايا مويانه انت قال واسك بنانايه بعد كده قفكو انو شيغاني واجب waxa ku inuu ka tago kana waa ka si xaraam buu marka ninkii cid xamata nin xanta soom maanta soomeey dad buu xantay oran mayno ka fiiq ahaan markay niraano soonkii waajibkii kama dhicin oran mayno oo soonkii waa ka buray oran mayno sax ma laana waxaan la tacaamulaynaa waa meeshan rabo inaad fahamtiin inaad ma garanaysaa waxaan la tacaamulaynaa qawaacid sharci ah waxaan leenahay marka koow soon sidiisa waxa buriya ama ku buro oo asaaska waxaan ku ogaanaynaa definitionkiis ama tacriiftiis ama qeexitaankiis Soomaali sida yiraahdo صح معها صون وما حيصون صام هذا نرانا بمعنى كف عن الشيء وياه صام عن الشيء بمعنى كف عن الشيء شيء بأسكت ضعفي أيال هذا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صوم كما مريم بنت عمران أو تيدي وصوم هذا كان كسوم يا بلاد مركز صوم كشرعي كان وام حي قفكونو كصومه وحلعبه إيه وحلعنه iyo galmoosho laga bilaabo waagu markuu bariyo ilaa qorraxdu ay ka dhacayso asagoo cibaado niyeysan sababta ma garanaysaa arkaantiisu waa taas weeyaan markii haddii la waayo mid ka mid ah leena soonku waa buray maalan haddii qorraxdu waagu mar hadduu bariyo ka bacdi oo xaaskiisa barakeeyo waa ka burti soonkii waa ka buray kow sooma jimaaci waa ku buray markaa soonkii wax kale waa ka sii dhalanaya mas'ala kale ka dhalanaysa
soo sax ma garanaysaa mas'ala kale ka sii dhalanaysa iyada oo kafaarooyin iyo maart ayaa ka dhalanaya hadduu camdu la galo وبالتالي waxaan leenahay hadii la aadimo oo maaratay qofku uu dhacdo waqtigaas kale inuu amaliyad ku jiro waa inuu maarta meesha ka boodaa maarta طيب hadii la gaaro say dadka qaar u fahmeen ma aha waxa kamida markaas labo jimaaci akligi cunitaan waagu haduu bariyo ilaa qoraxdu ka dhacayso waa in waxa la yiraahdo cunid waa inuu soo cunin adigoo afka kuugu jirto luqmadi oo wax cunaya haduu waagi bariyo waa inaad maarta iska tuftid weeyaan fuqada qaar dadka qaar hadaba casriga ma xiran laqba kuleeyeen laqma ilaahi ba quraan nas quraana weeyaan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr marka cunid iyo cabitaan gaaya waxa looga dhigay waagu bariya mar haduu waagu bariyo cabitaan iyo cunitaan dambe lagu ogol hadaad soomeys soo saama wayla maadan soominin mid maxamed salaad waxa leenahay intii ka horeysa waaga baritaankeeda waa lagu ogol yahay laakiin wixii ka dambeeya waa mar haduu bariyo hatta waayad quraan xadiiska abu hurayrana saydadku fahmeen ma ahano xaqiiqatan xadiiska oranaya hadii la adimo qofkiina wax cunayo ha iska cuno maarta xadiiska macnihiisu waa la isku khilaafsan yahay xadiiska la fasiraya jira ووحو لما عنيها وانا بلفظ كمدا الفاضي سويان حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت marka nabigu adinka hore ku hadlaya hadii ma garanaysa la adimo bilaal habeenkii buu adimaahi adinkaas aadaankaas waxa loogu tala galay suxuurtii marka qofku waa cuni karaa mar haduu bilaal adimo iska cun ila laga gaarayo adinka Abdullah ibn Maktum labada qofood laba cod baa la sameeysan la isugu darin soo ma haduu halin ma adimo makii hore masakii dambe la garan maayo sama dadku isla cod ma labada cod lagu kala saaca loogu tala galay marka lama cuni karo la xadiiskaas wala macnayahay qofku waa cuna waa aba ila maartay waa ka bariyo waxa lagu garan jiray inuu adimo Abdullah ibn Maktum waa nin indhalabo ah loo sheegay waa bariyo waa koow cunadii cabitaankii iyo magaranaysa u galmooshihi laga bilaabo waagu u bariyo ila qoraxda ka dhacayso waxa la mid ah maanta cunitaanka cabitaanka waxa la mid ah wax dheer habka wax loo cuno loona cabo maanta cirbada la isku diraa jira oo raashinka u dhigma ayaguna burinayaan raashinka waa marmaysid glucose hadii lagu duro waxa weeyaan ama dhiig lagu shubo lana abidi cunada maxay waa dhiiguba abidi cunada maxay sameeyay dhiig bay sameeyay sama dhiig wala mid weeyaan waa ku buraya waxaan sheegnaa cunadii cabitaanka iyo galmooshay soo sax maaha waxa kale oo la mid ah qofku hadii uu isqaaciyo farta uu afka gashado ninka iska hunqaacan mushkilada ma laha waxa weeyaan soonka burinaya xadiis saxiix nabi ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa kamid ah waxyaalaha soonka burinaya hadaadan cibaadada niyeysano habeenkii waqti kamid ah aadan niyeysan intaan waagu barin ka hor waa inaan soonka niyeystaa man lam yubayyit siyama fala siyama lahu xadiisaas nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam qofkan habeenkii barin soonka soon ma laha waxa kamid ah waxyaalaha ku bura qofka uusan dambina ku lahayn caadadii gabadha ay ku dhacdo maanta dhanbay ama ay maartay ay umusho maanta dhanbay soomaneed markay nus saac ka hartay adinkii maqribkii bay caadadii ku dhacday khalaas maalintaas dhabo dhamaat ajir bay laakiin leedahay soon maanta soo qalaysid weeyaan taasoo ku bugtaa qofku hadii uu waasho qac yiraahdo maskaxda qofku mutaklifku wuxuu ka dhashaa maskaxda maqti hadii uu qofku tiilay u timaado waasho asagana qofkaasi soonkiisa ma soconayo soo ma ka buraya maartin niyadii aan sheegayn ilaahay naga badbaadiyo haduu ridoobo qofku oo diinta ka baxo soonkiisna waa buray laana niyad ma jirto niyadan ba ka hadlaynaa dana ma muslim ahayn ba kama ansaxo soonku ya ayuha alladina aamanu kutiba qur'an ya ayuha alladina aamanu kubilaba amma almurtadun kuma jiraanba khitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala yakfar wixii lamida ridada kaliya ma kufriga gaalnimada wixii lamida dhamaantood qofka soonku marka waxyaalaha aasaaska oo qofka soonka ka buriya haduu mani ka timaado jimaac waa sheegnay haduu nooc kale istimnaa iyo wax lamida la yimaado ka buraya yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu barwad ku soo arorto marka haduu san shahwadaysa iska dhaafinin qofku
waxyaalo fiiriyay ama kaasa shaabo ka timid soonku waa buraya لأنه حديث كنسك حديث قدسي ويان يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل بأمان أنا درادي وقت جاية صون كمركا geerida waa lagu daraa dadka qaar kood geerida ku daraan laakiin geeridu takliif lama dhamaanaya soonka marka waajibaadkiisu arkaantiisu asaaska ah waxyaalaha maartay asaaskiisu waa asaas weeyaan sheekh waxaan u maleyn doonaa islaantii soonku gabadhii maartay soonkii ramadaankii baa u soo galay cudurdaar bay lahayd waa umul bay ahayd ama maartay way nuujinaysay ama waxa lamid ah qofkii deasna jiranay sidoo kale ah marka nafteeda u baqday ama caruurteeda u cabsatay ama maartay naaska ay jiqaan ama nuugaan bay caanaha uga baqday gabadhaasi qofkaasi dambaabi maayo laana cudurdaar sharci ah ay uga tagay وبالتالي waxa laga doonayaa inuu soo qalleeyo ayaa maartay gabadha soo qallayso uguma filla kali ah inay wax bixiso riwaayad Abdullah ibn Umar oo bixitaanka ka leysa Abdullah ibn Umar madkiis wuxuu ahaa qallo iyo maartay iyo fidiyo labadan isku darto haday maartay nafteeda aysan u baqin caruurta ay u baqdo وانا مذهب كو قاطع امام الشافعي رحمه الله عليه لكن qofka aan taqsiir iyo xad gudub samayn waxa laga doonayaa soonkii inuu maanta soo qaleeyo ay waqtiga uu chance kala hore wallahu aalam بسم الله جزا الله معالي الدكتور على هذا التنوير إلهي سبحانه وتعالى بركاته تكلم كبر رجل لها وحيتها مثلا قفك حنوصا قفك إلهي سبحانه وتعالى وحاوسي ولو عذر داري وحا ليري دب دم بها كسوق الله مالمي كتجي حنون كن والله حنون اسكا تمبري او وقت قانا مثلا قف لقلي ولح بلود كدب اسكا فيعنان دونا ama la kabay oo dawo qaadanaya oo iska fiicnaan doona xanuunada sidaas oo kale ah qofkii uu iska cunaya iska cabaya oo afuraya dib dib ka soo qaleynay xanuunka soo duuya xanuun muzmin ah oo rajo qofkii aan laga qabin مثلا kelidii oo kale beerka sanbabka iyo wixii la halmaala oo dawada uu qaadanaya inta dawo joogto ah oo saddex gelinba uu qaadanayo aan ka tagi karin وحالات مزمنه وقفك في ديده لو اوغلاد marka baraarujintan waxaan u keenay waxa caado ah yur ma aqaan meesha laga keenay fatwada wuxuu ku leeyahay sheekh waan xanuunsanaa fidyan bixiyay madax hadii laga qabto fidyo bixinaya maskiin man qudiyo ku leeyahay oo maxaa u quudisay may xanuun ba xanuunka fidyada loo bixinay kaama xanuunka fidyada loo bixinay xanuunka aadan ka soo hee kabsan karin waxa la mid ah qofka da'da oo kale رجل لقى مقا قف داي انه هذا ديب دم وكير هذا صما اذا اوريدي خلاص تمرتي ويتكتي رجل لقى مقا انه مركا ديب وسو يراado isla markaana uu soonki uu soo qalay rajal laga maqabo saadarteed waxaan leenahay maradka la leeyahay qofka waa loogu cudurayaa xanuunka qofka loogu cudurayo waa inuu noqdo xanuun aanu ka soo kabanayn markaas wuxuu bixinayaa video bixinayaa taa marka inaad ku baraarugtaan wayta markii labada culimo ay fadaa'ish iyo ahkaamti noo taabteen in yar oo xogaa waxaan ku darayaa aadaab iyo khaladaad dadku ay galaan wata sheekh haduu ka dhawaajiyay jazakallahu khayran in gabadha hadii ay xaa'ido noqoto ama dhiiga uu ku dhaco billaha ah waa loo ogol yahay inay cunto cabto laakiin waxa jira soonku wuxuu leeyahay heybadiisu leeyahay karaamadiisu leeyahay waxa la rabaa gabadha muslimadda ah in meelaha dadka ay fariisan public ah inaanay fariisano raashinka cunin ayma Pakistan oo nala degan meesha waxay dhahdeen idinku waxaad weydiineen bisha Ramadaan marka la gaaro dumarkiina ma soomaan miya markaas waxa dumarka cudurdaar ayaa jira oo gabadha ka celin kara McDonald's iyaga buuxiya say u ridanaysa sambuuska yaabaysa kullee oo isku aadisanaysa Big Mac taana runtii ma qurux badna yani macna raashinka soo qaado guriga la tag marka bir Ramadaan laga baxo meesha aad ilaahid waa meel kale laakiin inta bisha Ramadaanka lagu jiray waa in hibadeeda la ilaaliyo bishaas waxa la mid ah qofka xanuunsan oo kale ha fariisan meelaha publica iyo maqaayaha la isugu yimaado gurigaaga la imow si tartiib ah u cun iyadoo cidna aan ku arkin maxay bishu waxay leedahay xurmadeeda leedahay taana marka waa muhiim in marka aan ku baraagno waxa la mid ah iyadana bishan waa bil duco
ducadana waa la ajiibaa in qofka uu aad iyo aad uga faa'iidaysto waqti saxar markuu suxuuranayo marka la gaaro adinka inta la adimay la afurayo maalmo waxaa ku jira cajaa'ibtooda leh leylta qadar baa ku jirta qofka inuu ducada aad iyo aad u badiyo qofka saa'imkana ogtiin ducadiis waa la ajiibaa dadku marka waa qaafiliin waxa laga yaabaa inaan ka fakarayo saacadda aan iyo aan indhaha la raacayo goorta raashinka la soo dhigay laakiin ana la socon ducada meesha ku jirta fadli weyn way nagu dhaafay halka marka waa muhiim waxa kale la mid ah ducooyinka waxa la mid ah مثلا qofka marka afurayo kale inuu yiraahdo ذهب الظما وابتلت العروق ها وثبت الأجر إن شاء الله دعاء صحصا بإذن الله سبحانه وتعالى هلكو كده اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وضعف مركز لك لي حديث كاس إنه قفك أنو كتجين وإزبره بشن إلهي هن قارسية وبشي قرآنك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبشي قرآنك لسود الجي أي معناه ذو أي تهايو إن وقفك وتبابشيستو قرآن أقرسك أنت وختمك كتابك إلهي إنه ختم إذا آدابتنا وإلالنا أنو دقدقين حروفته هي أحكامتنا حقوق ذا أوسينيو قفك إلهي أنو سرتقل أما أنو بارين قرآنك يوكل هاد دقيستو ما لها قرآنك لقوا أقرنا هاتقو وبيشي قرآنك وبيشن بيش لقوا تلقلوا قرآنك ولذلك بيشن مركز لقاره أيا سلف كقاركود وحلقة سوحكتي inay dhihi jireen shahrul qurra qofka soo qaari oo isdiyaarinaya masaxiifta waxa laga jarjafayaa boorka mobilada waa la soo download gareynaya sida loo baahan yahay inaad soo download gareysid masaxiifta musxafkaad ka xifdisay haddaad riwaayo kale ku aqrinaysid oo kale waxay samayn jireen xataa bacd alfuqaha raggii salafka ahaa xataa tadriis alxadiith iyo fiqiga way ka tegi jireen waxay xoogga saari jireen qur-aanka حبيب بن ابي ثابت مركب بيشان لا سو غلو wuxuu dhigi jiray bishi quraanka aanu fariisan lahaa quraada marka waxaan dhihi lahaa siiba aymada iyo dadka quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyay bal quraanka bishan xoog hal la saaray si ramadaanka uu kugu sahlanaado inkastoo ayaan darro ay tahay qof ilaahay intuu quraan xifdisiyay ramadaanka ramadaan uu la sugay ma aqan quraanka sida loo haynayo iyada laftirkeeda ma qurux badna aadaabtina maaha wixii ilaahay uu ku doorana maaha macnahaas inaan ku baraarugno bishan marka يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بشن إلهي حب والله الحمد ومضي أن صوماليات وحياها إلهي النقوم أن يسوحها كمذا قرآن كاو نقول بما يلبي أمر إيسا قفك حتاح حفظين كرا جزء لبا جزء حوق سار تفسير كيسا دقيسو وبالفضل جيدا له إيضا مركز قرآن كاللاقري حلو البكوسو بيق مبا فضل آنو كمرين هدانا بشن مركز لقارو سيجارة أيا مركز حوق الله صار يا سانو أنباه أنه وحكا الله إيضا رميدا dadka mukhaalafaadka ku afuray waa la adimay sigaar buu markii la soo boodaya الافطار على سيجاره آداب maaha isagoo markii hore calaamad su'aal ay saareen xaraam aha haddana الافطار على الحرام wax qurux badan maaha waxa soo soonay saacado wali dadkeena meelaha joogay saacada dheer baan soo meena som iidan waa muhiim waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah markaan ka hadlayno waxa laga yaabaa kulay shaqadiis waa iftiimin doona anu ma garanayo Sweden laakiin meelaha aan ka imid oo kale Norway kale waan sheegi karaa waxa laga yaabaa inay 5 jadwal 6 jadwal 7 imsaakiyaad ay jiraan oo masjidka mid uu leeyahay waqtiga afka la xiranay waqti la afurayo masjidka kale mid kale uu leeyahay walaalihiin kurdida mid ay leeyihiin walaalihiin falastiiniinta mid ay leeyihiin qolada kale qolaba inay leedahay laga yaabo halka markay taagan tahay adiga waxa laga rabaa mid uu ku go jadwalka sunni center hadaad qaadatid isaga afka ku xiro isaga ku afur mid kale hadaad qaadatid isaga afka ku xiro isaga ku afur sheekadan isdiwaajiya leh oo waxaan arkay dad ilaa suxuurtana qoladaas fiicano iyaga afka la xirtaa afurkana kuwana degdeg kuwana la xirtaa marka manzil been xagana uu ku jira xagana uu ku jira baalka yool maaha عيار معها وكت ما رأيت وصون مالون كوكو معي لهذا تري مثلا شيخا يمركز كان وحنا كل صانة هاي فطولا بكل صانة فطولا سيد أنا وقاضتها لكن هل كنا أفكار لحرتي محيا لي يجا أولو إلا وقت في عم بكجرة هل كنا مش وحرة مركا لو تنتقي إنه هل كحضه تانا هذا ما يصير إذا إنا كبر النوى وحكوا إذا أنا لبدا إن وقتك أن لقول من
waxyaabaha maalay aniga nansanska bisha ramadaan marka la gaaro subhanallah ducaaduna way shaqaysanaysaa waxa laga hadlayaa dadkii sidii wax loogu aqrin lahaa rag kale waxaa jira musalsalaad sii diyaarinaya musalsal bay sii diyaarinaya waxay rabaan push the time program la dhaho inay soo diyaariyaan that's why bisha ramadaan marka la gaaro musalsalaadka turkiga kii jabaneeska iyo kii kooriyaanka gabdhaha xataa kooriyaan bay noogu hadlaan ajaa'ib af kooriyaanka ku hadlaan halkee ka baratay gabar arkaysaa joogto af kooriyaan ku hadlayso halkee ka baratay musalsalka oo maxaa ku raaciyay romantic waayo nooc bay ku leedahay romantiga xagga jira musalsal kooriyaan kii masaarida kulli waxay shaqeynayaan bisha ramadaan marka la gaaro waa markii la yiri shayaadiintana waa la xirxiraa waa markii jannada albaabadeeda lagu ballanqi lahaa oo baabu rayaan iyo saad ku geli lahayd lagu sallaxay baad musalsal ku mashquulaysaa qaarna dubnaday u fariistaan kuwa turub bay u fariistaan kuwa isfooraan qolada tiktoka programmay hadda soo diyaarinayaan facebooka bishii ramadaan waqtigeedu uu koobay salaad tarawihna uu ku sugaysaa quraan aqrisna uu ku sugay inaad khatinta laga rabo allahumma musta'an maalinta waa sooman tahay shaqadana way ku sugaysaa waxaan soo dhan isku keentid wey marka ma bil cibaada mise bil ciyaar mawduucaas isana waa mawduuc markaa muhiim waxa kaloo la mid ah ha ka badbidin raashinka marka la cunayo bishan maaha bil akli wa shurb maaha wixii ku soo dhaafa maanta oo dhan inaad hadda ka farqabsatid maaha nabiga sallallahu alayhi wasallam marka saa loo adimo xoolaad sallallahu alayhi wasallam biyahaas iyo timirtaas la isku kaban jiray in yarna xoogaa cun mushkilad male adoo tawaaqa oo raashinkii weli indhaha la sii raacaya salaadaha gelin oo way fiican tahay xoogaa inaad ridatid laakiin inaad bari musugunta teersa maanta iska wadid oo meesha aad fadhid ilaa meesha laga jiido oo jamaacadii aadan tegin oo maqribkii aadan tegin oo meesha aad fadhid iyadu aadaab maaha aadaabtaas waxay ka mid tahay waxyaabaha in laga waantooba ay tahay qofka iyaraafka ha ku rito xoogaa yar wax uu ku kici karo salaadii ha tukado xataa tarawih markaa tukad kadib markaas wixii aad ilfaha u qaadi lahayd iyo waxaad cuni lahayd marka aday ku jirtaa laakiin kow waqtiga salaada ilaali biidni illahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo idin la mid ah suxuurta oo kale suxuurta inaad aad u dharagtid maaha maxaa yeele halkaana daacwuran waa ka qaadaysaa waxaa laga yaabaa in maalinkii oo dhanba culays uu kusoo koro waxba kamaadan faa'idin marka leeyahay soonka jirku caafimaad u keenaa waxaa la rabaa wixii aad cuni lahayd xoogaa dhin oo waa bisha maaragtay daayid yar baa ku jira taa ka faa'iidayso qadaadka la gala waxaa ka mid ah salaada taraawiixda dad baa laba watar tukada laba witri bay tukadaan witrina masjidku ku tukanaya waa tir isdhaafkii ragcad ama 3 ama 5 guriga markuu tagay leyl baan tukanay wala witr kale soo celinay hal witr baa la ogoliyay hal witr baa la ogoliyay witrka hadaad masjid ku tukatidna khalaas way ka xiranta inaad dib u dhigatid oo aad qubayla salaati al-fajr aad witrka u istaagtid waa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam bishan marka la gaaro dadku aad bay moolalka ugu wareegaan marka la soo afuro raashinka la iska saaray ma garanayo markaas un baad moodaa in la leeyahay wax la soo gadgato aad lagu mashquula bishan maaha bishii meel kale lagu mashquuli lahaa ma ogid inay ku soo mari doonto bal hadda innaga oo nool oo axyaa indhahayna shanta yihiin ba waxaa leena tusay sanawaadkii la soo dhaafay koronaha uu jiray maxaa khayra oo runtii ina dhaafay qof walbuu ka shalay wuxuu يعني هذا وان درين رنتي قيمها بالرمضان أي لهاي وان درين مركي تراويح لواي مركي تهجد كلواي مركي الليل كلواي مركي إفطار كي جماعي كلواي مركي دتك ولا لها يسكو إيمان لها لواي مركي هسان درين ما أجد مركي فرصة كورن قريبة كحكتة أو زون نقدون ولذلك إن إلهي سبحانه وتعالى ولا لها انتجينا إيسا كنت جان إله هون حريسة أنت لما تشهدي أهيانا إنك إن السيهال سنة زيادة النبي صلى الله عليه وسلم وتنوتين لوضي ولا لها وكي إلهي سنة أنت قدر يوعير أليس قد سام بعده وصلى كذا شيبه صام أو مركز كذي فضل قاتلك كجير وحكى له إذا اللي بعها هذانا آدابته حكمت هرت مالها أن نجوجنو صعدوا ويديريهن لا شك مركز وإحنا نقول هذا أجر أكثر لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى لأنه الجزاء من جنس العمل وقولنا حتى وحال وسي السعودة وقت أصلا كوسو بيج مدونه حلي وينتر وينتر كسعودة ويقاوان دونا صام مركز هل قف تلفون كوسو ديري ملك شغلان بان نقول نعيس قفكو يديني صون كم حال غير العمل لأنه وأجي هاي سعورتنا وقراعة أفركنا وقدده لكن مركو ديراده ويقول لي الشيخ وسان معقول معه ويناد wax ka badashaan arrinkan oo kii hore ma ay weydiisid kan markaad weydiinaysid which means liya la alayhi taana waa laga fiican yahay halka markay taagan tahay marka bishan waxaa jira marka yar yarka si ciyaalka hadda qaan gaaray oo kale
calaamaat albuluug gabadha marka laga helo gabadha yar iyo wiilka marka laga helo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina faray in aan wa'mur ahlaka bisalaati waa la niri salaadana in la faro soonkana waa loo sheegaya ha soonta gabadh yarayd maya sheekhu hadda unbay soo kacday maya ma aragtay cunugu waa yar yahay ha sooma hadduu wadi waayo markuu 2 saac sooma uu wadi waayo ma kari kara iska cumar baa la gartay yani waxa laga rabaa muxaawala laga rabaa saacadiya dheeraada sooma soon markii aad duhurka maraysid macnaha la maray mesela 5-6 marka la maray ayaa sonkortii qofka ku kacday ama awoodii ka tagtay ama shaqadii ka tambadisay markaas oo kale awoodaada way tagtay dib ma ka soo qalay la yukallif la nafsi illa wus'aha laakiin ina raamay saacadaas way dheerihiin waana shaqeeya hadda aanan soonkii aanan niyeysan ama ilmihii yar aan ka celi ala asaas anoo leh saacadaha waa dheer maya ha soomeen ha bilaabeen hatta 2 saacaday soomaan oo tamarta markay ka tagtay aragtay yar inuu wadi karin tii yareed inaanay wadi karin marka ha afureeno dib damba ka soo qaleen doonta haliira tarbiyadana waa muhiim weey waxa la mid ah salaadaha marka ay waqti dambe ay tagaan oo kale marka inta la gaaray samarka oo kale ishu markuu 11 oo 12 tago oo kale oo fajr waqti hore waxay ku leeyihiin maya kuwa yar salaada u kici insha Allah subhanahu wa ta'ala hatta markay ugu yartahay waa ilmo yar oo la tarbiyeynay isha iyo maghrib inta israaciyaan ha seexdan tarbiyada macnay sameynaysa bi idin Allah subhanahu wa ta'ala waxa kale iyadana la mid ah aan ku baraarujinaya dad ba soomaya mana tukanayaan salaadii oo runtii ahamiyadeeda leh bacda tawxiid timid ayaa qofka soon uu soomaya mana tukanayo iyadan labadaas ma qabtaan yani akhlaaqiyadkay kamid tahay waajibaadkay kamid tahay in soon bishii ramadaan aan laga tagin iyo salaadii inaan laga tagin salaada isku day qofka duu taariku salaadaha marka waa inuu tukado waan gartay taraawiixda kale ma tukan karo waan gartay waa shay sunna ah laakiin waxa cajiib leh qof dhan ee muslim ah ee laga rabo inuu tukado inuu salaad intuu ka tago hadana uu yiraahdo waan soomaya waxa kale iyadana muhiim ah marka laga baxo bisha ramadaan marka laga baxo hormari soonka shawaal hadaa rabtay inaad maxna ka wada soonka shawaal marka intaadan soomin ka hor qallihi hormari saasa fadli badan iyadoo la kala hormarin kara hadana waxa fadli badan inaad qallaha hormarisid maxay qalluhu waajib soonka 6 maalmoodna waa sunno marka ma ogid inaad haleeli doontid hormari tanbiidillah subhanahu wa ta'ala gaar ahaan gabdhaha macduurka ah maalmo lagu yeelanayo oo kale inay saa sameeyaan biidillah subhanahu wa ta'ala waxa kale su'aalaha ku jiray gabar tiri waxa ay soo maray 3 ramadaan meelaha soo kale oo mid way 6 maalmood lagu lahaa maxaan ka yeelaa hadda la imo oo qallee biidillah subhanahu wa ta'ala waqti ramadaan haysata waana 18 maalmood intaan filayo qallahaas wax kafaara ku saaran malaha oo kafaarada ma aragtay aaraada sheegaysa daliil ma wadato laakiin soo qallee biidillah subhanahu wa ta'ala ilaahay naga aqbalayo hal mid adaf sheekhna بسم الله بارك الله فيك أضحك الله أسنانك وكثر الله أمثالك خير الله بسيد دكتورك وحمانا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به من الجداول المختلفة أنا حق أن الدلال بنبع لبحية حقيقة إن جداوش يلا مدايو صلاة والحمد لله له قوليست لكن وحال جهدي بدن يا دراسة بدن يا شرار بدن خير الله كسيعدتك كشقية وحنا ما ندونا هذا ما الجداوش الفراغ بدنات مع الكيسين إن شاء الله تعالى ما نشرت مساجد واسكم دويان taasna waxa ka dhashay mushkilad weyn baa soo sheegay shay ka dhalanaysa maartan waxaan nasoo maray reer oo nin iyo xaaskiis oo laba jidul kala haysta guriga dhexdiisa saxma haweentuna mid haysato ninkiina oo maartay mid kala haysto waa laba reer oo isqaba maartay marka haday sameeyso afurkii waxay leedahay waxa cuni lama gaarinay asna wuxuu doonay inuu cuno saxma mushkilaadku marka alxamdulillah mushkilaadku laga gudbay waxaan rabaa hal mid inaan wax yar aan ku baraarujiyo oo ka maartay weydiisanayo doctorka inuu ogolaado سادوكتين بشهر رمضان كفضائشي ذي خيرات كذا وحا كمذا إن يتقبل شيء صدقاء لبحيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل نبي أدب الديقسي أهاسي سبا إلهي الديقسي وأبوري لكن بشهر رمضان كأدب وسي الديقسي نقول النبي عليه الصلاة والسلام أدب ودقدقي شري مارتي سادوكتين شعب كصومالي dadka istaageera oo wax isu tara oo magaranaysa gacan qabtay kamid yihiin waxyaalan ay ku amaanan yihiin
shacabka Soomaalida deegaanada ay degaan ka darif iyo ka darif cirif iyo ka cirif maanta abaara xun baa ku habsaday sicir bar baa ka jira adduunyada dagaaladan haddana waxay sii kordhinayaan mushkilaad fara badan bay sii kordhinayaan bishii ramadaanna waa la gelayaa dadkuna maarta waa tabaalaysan yihiin duruufo fara badan baa haysta oon fara badan baa haysta biyo la'aan baa ka dhacday deegaanada Soomaalidu ay degaan meel kastaba ha noqotee saadarteeda waa in maartay wixii dadka u tari jirtay inaad wax ku sii dartid adiga iyo reerkaagaba inaad xoogaa yaraha raashinka faraha badan oo lagu suxuurto iyo midka lagu afuro hal kala yareeyo sanadkan maarta dadkaasi xoogaa maanta loo reebo oo ninkii wax badan cuni jiray xoogaa ha yareeyo insha Allah ta'ala inuu dadkaasi anfaco ilaahay ajru ka siiyo subhanahu wa ta'ala khaasatan xagga biyaha on fara badan baa jira nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam afdalu sadaqati sagyul ma sadaqa waxa ugu fadli badan biyaha oo la waraabiyo rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam qofka aad biyo siid wadogtiin xadiiskaas ayaa ku soo arooray ninka asagoo on hayo xun ku dhagan yahay ceelka yimid ceelkii galay ee biyo ka soo cabay ee arkay eyga maartay aad u ooman ee eygii waraabiyay jannada saas ku galay gabar xataa reer Israa'iil baqiyadana waa ku soo ortay riwaayada gabar zaaniyada ahayd waa loo dhaafay maartay dambigeedii baa lagu dhaafay maxay saysay ay bay waraabsay insaan maxad malanaysaa qof muslim haddana maxaa sii malanaysaa saxaabadu way weydiiyeen biiraadar oo xoolaha iyo waxyaalahan wax siinayno ajir ma keenayna markaasuu beer kasto qoyan ajir baa keenaysiin buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way garanayeen biyaha waraabitaankooda fadliga ay leedahay Uthman ibn Affan markuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam يا بير روما قدنيا أو مسلمين تقدس يقع عبان أو جنة إلهي سبحانه وتعالى إلهي وجنة سيا عثمان بن عفان بمارتا يا عيل كايبي وحيل كفانا كمدهد ما أنت الذي لا ينكي بير روما قضي سمائه مارتا مسلمين تقدي عبد الله بن عباس بوحى لو يدي صدق مع فضل بدن مركزه سقي الماء سير رواد النبي حديث كيس عليه الصلاة والسلام إن بيدك الله وربي سو ما أركتين بوري أهل النار كما أنت قيامة إن أرانا يا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا أفيضوا علينا من الماء إن إليه مات وحو الرأي وبيها ويان بيها رسولك عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة نبي يمت مركزه حوالي أسبوعات وجعل يقدم متى أيوة يا رسول الله هيدا وحوي وجعل وما يصدر دار من إلهي رسول كيسو ما أنفعي هذا وحوطره وحو نبيه مركزه نبي ها وعليك بالماء أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وحد ولبت بحصة بيها يا رسولك عليه الصلاة والسلام كانت بيها وأرورتد إن هذا ما تعال الله قضاء إن ما لا تغيره بشان رمضان كأدي بمثال مهم عفوا خالق هذا صلى الله على محمد شيخ فضيل الشيخ waxaa raacsan maadaama maxkamadda ku jirtay dadku waxay isku khaldaan fidyadii iyo kafaaradii iyo sida fidyada loo bixin karaa u raac jazakallah تفضل هذا الشيخ بارك الله فيكم يعني قفك بش رمضان ك اي مارتي امال لو عذر داري uga tagay ramadaankii waa jiraday maalan qofka waa jiraday qofkaasi marka ama haweentii saanu sheegnay cudurdaar baa ku dhacay uu xanuunsaday ma awoodi karayo inuu soomo waa duqoobay sheekh duqa ayuu yahay oo gaboobay oo maskaxiisa laakiin joogto ama cudurkiisa uu sheegay shacali oo maartay cudur musmin uu qaba aan laga raaysan sida kansarka iyo macaanka iyo wixii lamid ah naga badbaadiyay subhanahu wa ta'ala qofkaasi waxa weeyaan quraanku wuxuu leeyahay waa inuu maartay bixiya fidya fa fidyatun marka fidyadaasi waa on qof wixii dheeshiya weeyaan fuqahada shaafiiciyadu mudbay ku qiyaasaan laakiin dhurufu waxa la yiraahdaa waxay waaqiciga waqtiga jiray akhriyeen marka curfi u celiyeen ayagu laakiin curfiga isbedela aqoon waa kala bedelan yihiin ma garanaysaa maanta marka waa inaad qofkaasi wax afuriya ama dherjiya inaad siidid halkii qof ma garanaysaa waxa marka qaarkood qofka uu iska jiran yahay inuu nin miskiin ama nin xoolo haysan oo makhaayad saaro oo yiraahdo ninka makhaayada ku leeshiyo galab kastaba ha ka afuro bariis iyo baasto iyo wuxuu cuni karayo dherji maarta meel igu qor bisha marka la gaaro sodonka oo ninka makhaayadaas iyo lacagtiis waxyaalaha ugu fiican bay ka mid ama hadduu awoodi karo cid wakiil ugu noqonaysa arrintaasi waxaan malaynayaa su'aalay taas bay ahayd nacam marka kafaara oo dhinaca kafaaradu de noocyaal bay leedahay waxaan hadda ka hadlay inuusan maad xaaskiisa u galmoodo
في نهار رمضان مالين وليبا أوصلنا عذر دار لهين مسافر أوصلنا هين المسافر أي هاي ما أعرف كواجب ميس قال موشن وحن كادنا قال موشن شرعي قال سيدي ما أعرف مدي واجبين شرتي حدك قف كاس تعتبر شيء يكون مجران أيضا تسمع كفارة كواجبيسة كفارة داس وكفارة الظهار سورة مجادلة لو شاقي أي كواجبيسة كو أضون وحرية أي واجب كوه ده أضون ما الله حياد صح معها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هل مالين بعد أتكيسن ويديه لحدا 10 هرت صوم بالقولية يا ليه هل مال سعلي واي وحلو جناحي لحدا مال موت بالو جناحي أما المهم لبا بلوت بيشو سائلة تونغو كرتا صدنا نغون كرتا لبا بلوت ولي بقى إسرع رعسان مالين هدا جويده وحبا كمان شان دي بسوا بالله بالليه جوينتاسي هداي سوق قاشو عذر سوق قالوا أما أي سوق قالن عيد وكله مال ما عيد وكله كسو هذا المشكلة منها أنت أيضا سيدو كله كفارة أو مارتي هدو أود وايو لحدا مسكين وقوضيه أي واجب يكون نقريسة إنه لحدا مسكين وقوضيه علماء عسواديان إسلامتا أي أصدق الله بضبا ما لبا كفارة نقوليه مثلا صحيحة أضاق مارتي أضاق بدر حر أصدق نقوليه صحيحة كفارة لما احنا بقول قضية وأساس أقول علي إسلامتا وحبال لقوم واجبين يا أضاق لقوم واجبين صحيحة نعم جزاك الله خير مر شعب فاروق لو يدي ولي الإسلام تحمل يقول لي هذا أنت جيس كقص شو السي تورتو فرح لك كويله جزاه الله خير الجزاء إن شاء الله ولا ليال وسوق بقولنا وقتي ونها يا صلاة دي عشاء وحبرك باكدمان سؤاله أو بلانسنين إن شاء الله وحنا نقول الساعة شيخ يوسف قف كسؤال قوي ماذا حتى دان لنا بالله إننا كما قارنا إن شاء الله علماء أنت سكفاروقين وحنك عصنا يا دعوة بدن بعضك سوقرتين دعاء داسنا وحسكودي إن مارتي جمليو أسكود رحمة حبدا أنو شيئين intaan ducada gelin ka hor information yara sala socotaanba Ramadan kasta masjidku wuxuu qabaamin jiray afurkaas oo loo sameyn jiray mashaadku sameyn jiray ilaa 500 qof baa qayb qaadan jirtay oo meeshan ka afur jirtay labadii sano soo dhaafay coronavirus dartiisa masjidku afurka ma hirgelin taraawixna ma jirin waaratay waxaan ku jirnay lockdown marka insha Allah walaalaha ka qayb qaata oo rabo inay maaragtay dadka afurintaas inay ka qayb qaataan masjidka la soo xiriir doonaan waxa jirta dadka afura meeshan waxa u badan arday iyo dad marka afurintaas oo 500 qof oo ka dad maaragtay arday ah iyo iskaabulo badan ragga u badan dumarka ma ahan marka insha Allah waxaan rajaynayaa ragga oo iskaabulada xilliga Ramadaanka dareema markii inay gursadaan oo ku dhiilgareynaa marka dadkaas walaalaha inay ka qayb qaataan lacagtaasna maaragtay qofkii rabo inuu maaragtay dadka wax ka afuriyo masjidka ku soo hagaajin doona intaan ka faaruqin waxaa jira ducooyin badan oo la soo qoray ducada ugu horeysa insha Allah waxay leedahay walaalo waxa weeyaan gabdha ah oo isxilqaamay dad dhibaataysan oo wadanka joogay bay caawiyaan marka in loo duceeyo in khayrkooda ay sii wataan gabar kale waxay soo qortay wiil baan isjecelnahay marka inaan isguursano hal igu soo duceeyo waa hadduu khayr ku jiro insha Allah maama kalena waxay leedahay wiil ba xabsiga jira marka in loo igu soo duceeyo wiilka inuu xabsiga Ilaahay maaragtay iga soo furdaamiyo waxa kale oo jirta duca hadda intaan meesha fadhino loo sheegay oo ah maamo wiilkeedii ka soo dhacay dabaq wuxuu ku jiraa xilliga hadda ah salganisku yaala dhakhaatiirtina waxay qiimeeyeen inuusan qofka loo naaleynin وسان مارت حبوا هارين ودمانيو قلب كيو دانا way ka furteen oo hadda wax ku haray ma jiraan oo marka waalidkaas
insha allah culimada waxaan ka codsaynaa inay si gaar ah ugu duceeyaan walaalka kan wuxuu leeyahay inay ii soo duceeya culimada ii soo duceyso muraad gaar ayaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaa insha allah culimada inay u duceyso inteena halkan fadhido waxaan rajaynayaa inaan nahay dadka ugu khayrka badan khayrka soo doontay inaan maaragtay ilaahay nagu sugo khayrka intaan maaragtay joogno waddamadan qurbaha ah markii insha allah in culimada ay kusoo gabagabeeyaan duco oo caam ah walaalayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeyn ducadaas ayaan noogu khatimaynaa xilli dambe iyo mutamaadka kale dambe aan isugu soo noqon doono insha allah hadduu ilaahay maaragtay cimri dheena siiyo marka insha allah waxaan ku rajaynayaa culimada ducada insha allah بسم الله شيخ waxaan u duceyn doonaa Dr. Ali asaga waa musaafir weeyaan musaafirka ducadiisuna si gaar ah loo aqbala insha Allah taala tan kale badana warqadaha ducada si guud ahaan loo sheego barakallahu fiik waxa dhici kara gabadhaas hadda la sheegay eragaasi ina rag soo qoray waa dhici karta waa badana waa dhaxda subhanallah شيخ إسقى الله الدعاء لك وحنا نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جمعنا هذا وألا يكون فينا ولا منا ولا حوالينا محروما اللهم سهل لكل واحد منا مراده اللهم سهل لكل واحد منا مراده اللهم فرج الكرب عن المكروبين فرج الكرب عن المكروبين الدعاء فربضان بالله صوت الشيء إلهي سبحانه وتعالى أجيبي كرا انت حنون حنونك الله كقاض انت اسبيتال هذا كجست الله كسو صار قفك مراد لمرادك الله سهله ذاتك الشيء يودم إلهي سبحانه وتعالى ألطف بهم منا إلهي سبحانه وتعالى مرادك وتنسى الفرد نهاسية إن كان قفك سو ماشي يمد رنتي خير كان كسو قيب قلي نيو المراد باكو تاغن إلهي سبحانه وتعالى مرادك إنها سهله نيو البضم بوليه إلهي قفل بدنتي سو سهله والدين الله عافية انت دمتان الله ونحريسه أولاد بارين الله كدي إنه جواد بر رؤوف رحيم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تي رومانتيك الدعاء قال أبهاتي ودارتها إلهي سبحانه وتعالى سؤال في إن شاء الله